السلام عليكم وين سلام dhamaantiis kusoo noqosho wanaagsan video waxaan noqon doonaa videogeeni afraad ee la socday shirkadda Funny Negastive iyo afartii cashar aan uga hadlaynay casharkan wuxuu noqon doonaa casharkeena ugu dambeeyay oo aan uga hadlayno shirkadda Funny Negastive okay hore waxa usoo sheekeen saddex cashar mid koowaad ahaa marka abaasiso dashboardkaas siduu noqonayo ka labaadna uu ahaa sida loo sameeyo KYC-ga iyo verification-ka sida loo sameeyo okay ka saddexaadna wuxuu ahaa sida payout loo sameeyo kana wuxuu ahaa casharkeeni afaraad ee la socday afartaas cashar okay waxa hore idinkugu soo sheegay casharkan inuu noqon doono mid aad iyo aad u muhiim ah oo aan uga sheekeyn doono sida u baasin karto akoonnadaada iyo iyo su-aal laga yaaba inay isweydiinaysay casharkii hore oo ahayd sidoo adoo akoonka kuna haysto sidee baa u qanacday $100 oo aad ka samaysay Funny okay ugu horreyn su-aasha rabaa inaan ka jawaabo kow akoonka Kotokono markaa gadanayay waxay iga baxday lacag gaarayso $300 ilaa $350 sabse meelahaas iga baxday okay qofka waxa ila haboon ama fikrad ahaan qofka waxa siinayaa akoonka markaa baasid whatever wuxuu ahaado marka ugu horeeyo waxa ku dartaa kaliya $20 haddii aad awoodo $100 ilaa $20 intii lagaa rabay inaad ku dartid marka koowaad ku dar kadibna sug payout-kaaga oo wuxuu noqon doonaa muddo 2 isbuuc noqon doonaa si aad u heshid ama lagu refund gareeyo lacagtaadii akoonka ku gadatay kadibna markii lacagtaada refund lagu sameeyo oo lacagta dib lagugu soo celiyo laba option ku furan oo ah in akoonkaaga hore u sii wadan kartid iyo lacagtii lagu soo celiyo akoonka ku gadan kartid maadaama waxaan yihiin ay business okay businesska caadiga marka loo fiirsho markii qofku uu meel furto marka ugu hore wuxuu ka soo celiyaa lacagtii sanadkaas ka gashay ama lacagtii dhismahaas ama wax qalabkaas ka gashay uu ka soo celiyaa lacagtaas wuxuu ku samayn karaa kale inuu meel safe dhahdo ama inuu meel kale xarun kale ku furo soo ma marka maadaama waxaan ay business aan ahaan ii tahay that's the way aan isticmaalahay okay oo ah kow in lacagtii ka soo ceshto iyo wixii markaas sharuudo oo laga rabo oo lacagta ugu yar aan la bixi karo inaan ku daro kadibna aan ka soo cesho lacagteydii marka lacagtii ka soo ceshto kadib waxaa rabaa aan sameeyo okay hadda waxa kasoo wareegtay 2 isbuuc kasoo wareegtay markii aan bixinayay lacagtii $100 ahayd iyo lacagteydii refund kale bixinay 2 isbuuc kasoo wareegtay aan intuu soo maanta markaa akoonkaygii meesha uu marahay iyo farqiga u dhaxeeya iyo ahob in la yaabi doonto okay akoonkiina haddii dib u tagno waxaad aragtaan inay ku jirto lacag ah $51,634 taasoo ka dhigan inaan ku daray 2 isbuuc soo dhaafayay $1,600 $1,600 iska leh inaan ku daray oo hadda aan ka sameeyay profit dhan $1,600 aan ka sameeyay okay la yaab su-aashaas in hadda jawaabteeda ay heshay waan laakiin ani cilmi yara aysan ugu ahayn laakiin ay ii ahayd inaan ugu horreyn ka soo ceshto lacagtaydii akoonka iga gashay kadibna akoonkaas aan la dhaqmo okay cawada casharka aan duubayo waa 27 bisha oo waa maantii ugu dambeysay inaan akoonka ku trade gareynayo cawadana waa cawadii payout-kaygii insha Allah hadda casharka aan duuba waa 2 saac oo habeenimo aan ii tahay 6 saac habeenimo markii ii gaaro waxaa la ii soo diri doonaa $1,600 markii laga jaro lacagta ay igu lahaayeen oo noqon doona 10 ilaa ama 20% noqon doona ama waxay ii soo diri doonaa $1,300 meelahaas ayaa rajeynaya insha Allah ii soo diraan okay percentage ahaan waxay noqonaysaa inaan ku daray 3.27% ayaa akoonkayga ku daray I hope inaad jawaabtaasna aad hesheen farqigii $100 ahaa maanta wuxuu isku bedelay $1,600 okay taasi waa mid su-aasha inaan ka jawaabay su-aasha kale waxay noqon doontaa sida u baxsan karaa akoonkayga okay ahaan markaan u nimaano risk management-iga ani ahaan waxay isticmaalayay phase 1 iyo phase 2 labada waxaa isticmaalayay 1% wax loo yaqaano okay 1% isticmaal trade kasto aan galay waxa ku galayay 1% ku galayay waxaana ka raadinayay 2% ilaa 3% ka raadinayay hadba trade intuu yahay sidee ka soo qaad lacagtana ku socotay buy falaad dhamaystiran oo samaysay hadday istaraatiijiyadna isticmaalaysid haddaad istaraatiijiyad kale isticmaalayna tada ku dabaq okay halkana trade ka galnay ilaa highgaas ayaa badan aan u trade ka haya
haddii highgaas uu 2% dhan yahay highgaas trade oo baxa okay badanaa okay haddii laakiin highgaas uu ka yar yahay 2% ka yar yahayna waxaa gaarsiiyaa ilaa 2% gaarsiiyaa inta ay dhamaatay ayaa gaarsiiya okay oo sidee noqonaysa kasoo qaad tradekan hadda baa u qaadanaynaa tradekan waxaa ka galay meeshaana ka galay hadda suuqu taagan yahay calaamadiyaa ka galay SL-kaygii logaasu ahaa waan kasoo qaad meelahan u ahaa okay ilaa hagan tradekan gaarsiiyo micnihiisu waxa waaye inaan lacagtan ka faa'iidi doono 1.38 ka faa'iidi doono laakiin markaan kale waxaa gaarsiistaa ilaa 2% oo sidaana somehow waxa dhacdo inta SL-kayga yaraado oo meelaha noqdo ilaa haygana tradekan uu noqdo 2.87 okay ayada ku darso 3R geesaas u gaarsiistaa somehow waxa laga yaabaa in SL-kayga saad u soo yaraado oo meelaha uu noqdo oo ilaa haygan uu in noqdo 5 ama something in noqdo markaas waxa TB ka dhigtaa haygaas ama haygaas lee suuq u socdaa uu target gareynaya sidee baa suuq inta soo dhaqaaqay corrective inta ka galay halkaan uu taagan suuqan okay kadib tradekan ani ahaan qolka ima waafaqin qaab noocaan inta ka sameeyay haddana meeshan trade aan ka galo hayga aad target gareynaya kan ma ahan oo daway waa kaas markaan taasoo noqon karto sometimes inuu ka bato 3R halkaan ka galay okay halkaan soo dhaweysto okay halkaan tradekan ka galay ilaa iyo hayga aan target almost 1.6 ilaa halkaas target waa 3R ilaa hayga aan target waa 4R sometimes waxay noqdaa 5 sometimes waxay noqdaa 7 okay marka meesha ugu yar aan target gareeyo waa 2 up to 3 intaas wax ka badan wuxuu ku xiran yahay trade-ka nooca aan qaadanayo qaabku yahay qaab noocaas ayaan oo la dhaqmo okay haddii ka soo qaad dhanka losska la aado la suuqan profit iyo loss labada uu leeyahay haddii losska la aado ka war okay waxa uu kala saaraa akoonkayga laba qayb okay maxaa la iigu horta inaan khasaaro waxaa la iigu inaan khasaaro 10% la iigu inaan khasaaro laba u qaybinaya waxa uu qaybinaya 5% iyo 5% oo qaybinaya 5 ku horeeya waxa ku isticmaali doonaa 1% ku isticmaali doona okay 5 ku xigana waxa ku isticmaali doona 0.5 ku isticmaali doona waa hadii aan galo loss dhan 5% hadii aan loss dhan aan galo maalinka 5% akoonka ku soo harto 0.5 isticmaali doona okay 0.5 oo qaybiyo marka 5% oo qaybiyo meeshan waxay noqon doontaa 10 trade noqon doontaa inaa ku khasaarin kara meeshan halkaan waxay noqon kartaa 5 trade noqon kartaa isku dar akoonkaygu wuxuu iga gubanayaa maalinka 12 trade isku xigta isla iga dhacdo taas ay miisantahay marka cilmi badan ku dhiman dib ugu laabo practicalka iyo istaraatiijiyada dib ugu laabo oo suuqan jooji okay waxaa idin sii doonaa marka talooyin ku saabsan oo halkan idinku soo diyaariyey hope talooyinkaas wax badan inay idinka anficin doonaan okay marka isla socosho wanaagsan okay talooyinka markii aad rabto inaad baasiso physics challenge-ga waa tan habka aad ku baasisan okay isticmaal risk management cayiban oo ha isbedbedelin isticmaal 1% trade kasta oo raadi 2 up to 3 okay waxaa laga rabaa risk management inay isbedbedelin ama haddii aad lacag isticmaalayso lacagtaas inay isbedbedelin sidee dadka waxay sameynayaan trade waxay ku galayaan 2R ADS dhiganayaan trade kale waxay dhiganayaan 1% dhiganayaan trade kale 0.5 dhiganayaan taas hadda sameynaysid mati trade buuxa risk management-gaaga dib ugu laabo iska sax okay ama waxay isticmaashaa risk management isticmaalina lacag cayiman isticmaal saan in 400 akoonka kuna wadataa $400 in asal dhigato $400 noloshada aad ku wada akoonkaas $600 in asal dhigato $300 akoon trades ku gashid ayadana waa risk management la mid ah 1% iyo 2% okay qodobka kale wuxuu noqon doonaa trade aad qaadanaysid si fiican iskaga fiiri oo trade-ka marka qaadanaysa aqoon ku qaado sidoo kalena si saxsan iskaga fiiri okay wana trade-kaaga trade saxsan oo wax kasta istaraatiijiyada in nidaamkaaga iyo wax dhan ruleska aad qortay waa inay u dhan yihiin okay haddii aan gudubno qodobka saddexaad waa emotional ha noqon okay suuqa hadduu emotional ku helo wuu ku dilo okay oo trade-ka ha ka bixin cabsi aad ka cabsanayso trade-ka taasina waa mid ka mid ah cadawiyada ugu weyn
suuqan kaa saari kara macnaha trade-ka markaa gelaysid ka hor ayaa chance haystaa mar haddaad trade gashid wax walba ka filo okay sidoo kale trade-aha kala jeclaysan okay trade-kan wuu qurxan yahay 2% igal trade-kan wuu qurxan yahay lodwin isaar trade-kan wuu xun yahay wax yar ku gal no suuq hadduu yahay ka ugu qurxoon A plus oo ah iyo hadduu yahay ka ugu foolxoon A minus ka ah waa inaad isku sii u qaadata isku same level una ku yihi okay qodobka afaraad trade-yada aad qaadanayso waa inaad ku xisaabsan yihiin okay inta trade aad qaadanayso iyo trade-yada aad ku baasinayso akoonka waa inay ku xisaabsan okay for example ka soo qaada 1% ayaa isticmaalayaa waxaa liiga baahan yahay 8% ayaa liiga baahan yahay phase 1 okay 8% phase 1 ka liiga baahan yahay haddii calaa trade aan ka raadiyo 2R meeqa trade u baahana SWT soo ma okay laba trade baa qaadatay 2R ka faa'iid laba kala qaadatay 2R ka faa'iid taasna helay maxaa waaye inaad u baahan tahay afar trade inaad u baahan tahay afar trade inaad u baahan tahay okay okay waxa raadiyay 3% aan raadiyay sidoo kale meeqa u baahana laba trade oo horeyso 6 baa haysataa trade kalena 2 ka raadin doona okay waxa u baahanahay 3% u baahan waxa trade u baahana sidaas waa inaad ku xisaabsan okay oo sidoo kale trade TV ku dhacana sidoo kale waa inaad la socotaa isbedelka dhacay oo aad sidoo kale isku bedesho okay okay waxaan la soco akoonkaaga xaaladiisa sida M-ka iyo daily loss-kaaga ku haray trade ku hartay markasta aad trade qaadanayso trade-kaasna ama TV ama isla ku dhaco akoonkaaga isbedel ayaa ku dhacay soo ma marka waa inaad la socotaa okay haddii trade aad ka soo qaad 4% loss ku jirtay trade kala qaato loss kaaga dhacay waxa u gudubtay 0.5 ka u gudubtay bal haddaad ogeyn ka hor inaad 5% aad qasaartay inaad la socotaa marka xaaladiisa akoonkaaga sidoo kale ka soo qaad laba trade baa qaadatay bas waa ku baasaysa akoonkii kana 4 ka heshay kana 4 ka heshay heshay okay 8% markaa heshay maxaa laga rabaa adiga 5 trade days laga rabaa soo ma maxaa ku dhiman 3 maalin inaad trade qaadato oo 0.01 iskaga furto kan marka 0.01 ku furto kadibna markaas ku gaartay 5 trade days ku gaartay waa la socotaa akoonkaaga xaaladiisa marxalad oo marayana waa la socotaa okay qodobka lixaad daawo 10 badan oo psychology ah kuwaas oo qorshaaga training wax badan ka bedeli doona YouTube ka tag 10 badan psychology daawo wax badan ka bedeli doonaan maanta dunidu waa fududahay ChatGPT la isticmaalaa translate-ka wuu fududaaday uma baahna inaad qoraal intaa qortid uma baahna inaad fahmayso uma baahna kaliya telefoonka soo qaado kombiyuutarkaaga ChatGPT geyso cod ahaan ugu shid Soomaali ugu bedel leh kadib sidaas u akhri qodobka toddobaad ha ku mashquulin trade-ka oo maanta dhan ha fiirfiirin maca trade waa gashay maanta dhan ha fiirin hal daqiiqo bacdi ha fiirin sababtoo waxa laga yaabaa waxyaalo badan oo ku saxsanaa inaa wax agaal ka aragtid ama emotionka uu ku tusiyo oo dhexda uga khaldan tahay waa saana samaysta oo lagaa waalo okay kadib trade-kaas ka baxid soo TV ku dhicin ama isla ku dhicin ka baxid kadibna trade sida aad u qorshayso uu noqdo laakiin adigu waxba ka haynbo qodobkaas in taaban doono okay qodobka sideedaad ogow in aad trade iska dhaafto trade-kaas uu isku buux macnaha rules-kaaga trade uu ku bixin kadibna trade-ka uu TV ku dhaco waa hab ka mid ah profitable trader-ka ama qofka profitable-ka waxa lagu yaqaanaa trade inuu iska dhaafo oo iskaga dhaafo rule-kiisa trade uma buuxin qofka kadib trade iska dhaafto kadib trade TV ku dhaca ay maxaa ka reebay rules-ka ka reebay ana qofku inuu trade iska dhaafo rules-kiisa waa qayb ka mid ah profitable-ka okay kadib trade da ku dhaafo ha u malayn macnaha in khasaarta u malayn okay suuq maanta waa badan yahay okay is marka qorshe trade ah trade noocaya ayaa qaadanaya qorshe noocaya ayaa sameynaya trade iska dhaafa kuwa aan halis ugu ah waxyaalo badan is macnaha qorshe caadi dhiso intaan suuq qaarto iman okay kan ugu dambeeya suuqu wuxuu u baahan yahay siyaasad waa inaad leedahay dulqaad sugitaan qanaaco inaad ku qanacda marka wax suuqu kaaga soo baxa inaad ogtahay suuqu inuusan maanta kaliya ahayn in aysan waxba ku dhaafin inaad ogtahay in aadan daahayn macnaha qodob ka mid ah okay qodobkan daahayn waa qodob aad u muhiim ah dhalinyarta maxaa ku dhaca waxaa ku dhaca trade ka soo qaadbo halkaana ka gelaya maanta halkaana u qorshay trade inay ka galaan u qorshay halkan trade markuu maraya wax sameynaa trade halkan ma imaan kare way gelaya bay dhahay is arkayna meeshan aan dhigta ka soo qaad
تريدك waa lagu soconaa marka tradeka lagu soconaa meeshii uu sugayay uu tradeka imaana adiga intaas samaynaysaa lagu hayaa emotionkaaga uu xakameynaya uu sii socda haddana xaggaa kusii socday rafaad badan ay gelaysaa dhowtii tbgaaga uu yaraan doonaa qorshe badan ama waxyaala badan ka halaabi doona marka ogow inaad daahin taasna qorshaha ku darto okay taasina waxay marka taladii aan idila wadaagahayay oo qorsho diyaarso horta intaadan akoon furan استراتيجي waa diyaartay cilmiga waa soo baratay kadib qorshe diyaari qorshahaasna waa qorshihii akoonka ku baasan lahayd qorshihii ku hagi lahaa suuqaana qaneeca kula joogayso okay hadda waxaan u malaynayaa in aan ahaan waxay iga aragteen oo ah marka koowaad in aan kaliya bil dhan sugayo $100 bis konton kun aan wato taasina ay ka dambeysay in lacagteydii u soo celiyo markii aan lacagteydii helayna kadib waa aragtaa maanta waxaa sameynaya taasna dhiirigelin ha idiin noqoto casharkan wuxuu noqon doonaa casharkeen ugu dambeeyey waan uga hadlayna shirkadda Funny Next ani wax ii haray almost 2 hours kadib insha Allah waxaan lacagtan inaan la baxo ay soo gaarto wixii ka dambeeya insha Allah wixii su'aal aad qabtaan insha Allah qaybta comment ugu soo qora waan kasoo jawaabi doonaa ama video waxaan kasoo diyaarin doonaa Q&A ah ama qaybta comment ay soo gali doonaa marka waxaan kaga tagayaa bye bye guys salaama